marka ay dhegtaadu maqasho madaxweyne ama hogaamiye dal markiiba waxaa maankaaga ku soo dhacay inuu shakhsigaasi yahay maalqabeen ama uu ku nool yahay nolosha dabaqadeeda sare way adag tahay inaad rumaysato inuu dunida jiro ama uu soo maray madaxweyne noloshiisu ahayd ta dadka rayidka ah. Lula da Silva waxa uu ahaa madaxweyne soo maray dalka Brazil intii u dhaxaysay sanadihii 2003 ilaa 2011. waa shakhsi sameeyay wax aanay badanaa madaxweynayaasha dunidu samaynin. waa daacadnimo dhab ah iyo ka jawaabidda baahida shacabku ay u heliso dhiiranaani. magaciisa oo dhammaystirani waa Luis Inacio da Silva. ciyaarihii 2012 ee Olombikada ee London lagu qabtay dhammaan ciyaaryahanada reer Brazil waxay wateen xaaqinka dhulka iyadoo ay sababtu ahayd xus iyo maamuus ay u hayeen hogaamiyahoodii Lula da Silva. isla sanadkaasi warbaahinta dunidu waxay baahiyeen inuu Lula da Silva uu hore u ahaa dhul nadiifiye waayihiisa dhallinyarnimo ku soo qaatay hoteelada Brazil iyadoo uu gaadhay heer ay dadka reer Brazil ku naanaysaan wiilkii Brazil ama Fio do Brazil. Lula da Silva waa madaxweynihii 35aad ee soo mara dalka Brazil 27 Oktoobar 1945 waxa uu ku dhashay magaalada Pernambuco oo ah goobaha dadka danyarta ah ee Brazil. mar uu booqday magaaladaasi ayuu ilmeeyay isagoo soo xasuustay waayihiisii iyo marxaladihii adkaa ee uu ku soo koray. waa madaxweynaha qura ee kasbaday qulubta dadka rayidka ah, waxqabad hor leh, dadaal iyo karti, kor u qaadidda kaleeta, maamul dabacsan iyo siyaasad dhexdhexaad ah waxay ahayd nidaamkii Lula da Silva uu ku dhaqayay dadyooga Brazil. muddo 8 sano ah, hadda waa 8 sano ayuu dalkiisa kaga dhigay kaalinta shanaad ee dalalka ugu dakhliga badan dunida marka laga eegayo nidaamka kala sarreynta dhaqaalaha ee dunida. waxa uu ku guuldareystay doorashooyinkii qabsoomay sanadihii 1994, 1999, 2002 iyadoo loo aaneynayay sababaha guuldarradiisa inuu ahaa shakhsi danyar ah oo aan awoodin lacagaha diiwaangelinta asxaabta. si uu caqabadahaasi uga gudbo waxa uu aasaasay xisbi rayid ah oo la oran jiray PT ama Partido dos Trabalhadores. xisbigaasi oo ahaa kii uu ku soo baxay hase yeeshee si kadis ahayd ayaa ugu guuleystay jagada madaxtinimo ee dalka Brazil sanadkii 2003. Lula da Silva waxa uu hore u soo noqday makaanig farsameeya baabuurta, sidoo kale waxa uu mar wadooyinka caasimadda dalka Brazil ee São Paulo ku iibin jiray khudaarta. ha yeeshee waxa uu lahaa hami durugsan iyo inuu marun qaban doono majaraha dalkiisa. waxa uu salka hoose ka soo qaaday dalkiisa oo ahaa kuwa ugu liita xag horumarineed iyo dhaqaalaba, isagoo muddo kooban kaga dhigay dalkiisa Brazil kuwa ugu horeeya ee lagu majeerto korriimada iyo kobaca degdega ah. sanadkii 2004 waxa uu bilaabay mashruuca kacaanka warshadaha oo ahaa furaha horumarinta dalkiisa. sidoo kale waxa uu dhiirigeliyey wax soo saarka gudaha isagoo bilaabay beelista qasabka si loo helo maxsuul sonkoreed oo kaafin kara qaaradaha Yurub iyo Afrika. gabagabadii dagaalka may jirin cid guuleysatay ama libin iyo gacan sarreyn ka sheegan karaysay dagaalka, balse waxaa laga sinaa waxyeelo iyo saameyn dhaqaale, xanuuno dilaacay iyo barakacayaal oodaha goostay. ilaan waa dagaal iyo xaal. 2011 markii xilka madaxtinimo uu wareejinayay waxa uu si iskii ah u maray hubin dhaqaale, balse guddidii dhowrista maaliyaddu waxay soo arkeen arrin cajiib ahayd oo ahayd in loogu tagay guri yar oo ku yaala magaaladii uu ku dhashay. waxaa la yaab ahayd in la arko hogaamiyihii ruuxiga ee Brazil oo ku nool guri qadiim ah oo aan lahayn koronto. mar wax laga weydiiyey mushaharkiisana waxa uu tilmaamay inuu ku caawin jiray dadka danyarta ah. sheekada madaxweyne Lula da Silva waxaynu ka baranaynaa haddii lagu eegmado madaxnimo ujeedadu inay ka baaxad weyn tahay buuxsiga jeebadaha iyo lunsiga cashuurta muwaadiniinta oo uu xaalku yahay waxqabad balse aanu ahayn inaad u aragto burji aad dadka dheer tahay. daawade, madaxda Soomaalidu maxay tahay sababta ka hortaagan inay yagleelaan ama ay dhidibada u taagaan maamul ay daacad ka yihiin hogaamintiisa, mise waxa ay iska hilmaameen mas'uuliyadda saaran ee maalinta qiyaamo lagala xisaabtami doono? lunsi hantiyeed, dhicidda xoolo dad masaakiini leeyihiin, khalkhalgelin amni iyagoo gabaad ka dhiganaya hagaajintiisa, ballanqaadyo aan fulin, qofkii iyaga runta u sheega oo ay xabsi dhigaan intaa iyo qaar kaloo weheliyaba waa tilmaanta saxda ah ee siyaasiga iyo hogaamiyaha Soomaaliyeed ee sifada khaldan ka aaminay xilka loo igmaday. ilaahay ha u naxariistay abwaankii cabqariga ahaa marna horseedkii murticuryihii kooxdii Waaberi Maxamuud Cabdulaahi Sangub ayaa hore u yidhi, adduunkan waxaa cusleeyey caddaan baa madow amaahday, waxay nabadii cadhootay kolkay car itaaba gaadhay.
daawade haddii aad inuun xal u hayso qaabkii looga bixi lahaa dhibta taagan fariintaada halka hoose noogu reeb. King Video Production. King Video Production. King Video Production.